baa loo aaneynay laakiin cidii looma aaneynaya degan gabiley cid walba way noqonaysaa gabiley cid walba way noqonaysaa marka waxaan leenahay cirooy hambalyo saaha lagugu daydo iyadoo maanta ay ahayd taariikhdu 16 bishii 11 2021 waxaa soo xidhmay shir uga socday xisbiga wadani caasimadda Soomaaliland ee Hargeysa shirkan ayaa ahaa shirkii labaad ee xisbigaasi qabsado isla markaana lagu doortay hoggaan cusub loona doortay hoggaanka ugu sarreeya Xirsi Cali Xaaji Xasan shirkan oo si weyn looga socday daafaha caalamka gaar ahaan gobollada kala duwan ee Soomaaliland ayaa ahaa mid furan haddaba telefishinka caalamiga ah ee Bulsha TV oo makarafoonka la dhaxmaray magaalada Gabiley ayaa waxay ka bixiyeen fikrado kala duwan waxaana Gabileynahay xukunkuna waa qoriisu dhiib aad baan soo dhaweynaa xisbiga wadani Gabileyna maanta waxay diyaar way tashatay waxaana u tashatay danaheeda yaa wadankuna isbedel buu u baahan yahay aad baan soo dhaweynaa marka gudoomiyaha cusub ee la doortay Xirsi Cali Xaaji Xasan maxaad kala socotay shirka socday والله waxyaabo fara badan baan kala socday madax fara badan ayaa la soo magacaabay haday gudoomiyaal tahay iyo haday ku xigeenaa tahay iyo haday xogaye tahayba aad baan ula soconay geesiye weeyaan isagoo madaxweyne noqon ayuu gudoomiyaha xisbiga wareejiyay isagoo musharaxa doorashadana u tartamaya ayuu gudoomiyaha xisbiga wareejiyay halka gudoomiyaasha kale ay 22 sanadood ay meesha fadhiyaan waxaan leenahay gudoomiyaasha kale yaa xilku waa wareegtay iska dhiiba baash ana aragtideeda sanadka Gabiley waxa isku raacsantahay danaheeda iyo ayaheeda Gabiley sanadka mucaarid oo badanta xisbiga wadanina waa soo dhaweynaa danu dhalinyarta gobolka Gabileynahay bismillaahir rahmaanir rahiim allahumma salli ala sayyidina mawlana muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam allahumma salli ala bismillaahir rahmaanir rahiim maanta waxaan halkan Cabdisalaan iga wareysanayaa shirweynihii xisbiga wadani oo maanta soo dhamaaday maalintiisa labaadna ay ahayd soo gabagaboobay taasoo ahayd in maanta xisbigii wadani ee gudoomiyeenimada maanta lagu wareejiyay mudane Xirsi Xaaji Cali Xasan taas waa mid ta kalena waxa weeye wareejinta iska wareejiyay Cabdiraxmaan Ciro gudoomiyenimadii taasina waa guul u baahan in lagu daydo oo aan sida qaabkan loogu dhigsan yahay Faysal Muuse ugu dhigsan yihiin gudoomiyada xisbiga ayay taasina hormood u noqonaysaa inuu maanta iska wareejiyo xisbigii Cabdiraxmaan Ciro waana horseed Soomaaliland soo kordhay waa faa'iido Soomaaliland soo kordhay haddaba anigu mid baan leeyahay ta Cabdiraxmaan uu ku wareejiyay Xirsi gudoomiyenimada taa waxaan ka qabaa anigu dareen maan ka qabaa waana diidanay waayo nin u qalma ma aha Xirsi weyn ogeyn in berigii dawladdiisa Iiraanyo ninkii wuxuu sameeyay aad ogeydeen oo mas'uuliyadda isagoo wasiirka madaxtooyada ah oo intaasoo wasiirna intuu duufsaday uu iscaasilay beriga wuxuu islahaa bahasha dumi qaranka dumi buu islahaa laakiin uu suura gali weeyday anu ninkaasi maanta gudoomiyenimada xisbiga kuma wareejiyeen taas waa ta kale shirweynaha xisbiga wadani ee socday labada maalmood ee maanta soo gabagaboobay aad iyo aad waxaan leeyahay degmada Gabiley inta golaha dhexe ay ku leedahay xisbiga wadani aad buu yareed halka waayo waxaan ku gorgortama maalin walba yiraahdaan Gabiley baan awood saaraya oo waa Florida laakiin golaha dhexe intii ku leeyihiin way yar tahay halka loo fiirsadaan leh assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh Ciro sida qiimaha karaamada leh ee ugu wareejiyay Xirsi waa si sharaf iyo karaamo ay ku dheehan tahay waxaan leenahay Xirsina maanta Gabiley waa wadani waana ku taageersanahay anoo ku hadlana afka dhalinyarada gobolka Gabiley waxaan leenahay sanadka maanta waan la ag taaganahay wax wal oo xisbigaasi ma garanaysa ama musharaxa loo doortay ama loo egmaday unaga badayay gobolka Gabiley oo wadani baa leenahay maanta xisbiga kulmiyana waxaan leenahay sida sharafta iyo karaamada ay ku jirtay oo Ciro iskaga wareejiyay Muuse Bixin iskaga wareejiyay baan leenahay halkan waxaan ku hambalyeeynayaa gudoomiye Ciro waxaan leeyahay hambalyo ha kugu daydaan siday kuwa saadu yeeshay adeen maxay heedeen adu bedeshaad kulmad gudoomiyenimadii aad iskaga wareejisay ayay kuwa kale leenahay ku dayda kulmiye wadan maxay u cud intuba ha kugu daydaan taas waa hambalyo laakiin ilaa haddaan nahay nagu reer Gabiley ilaa daahir riyaale uma suganaa gobolnimo wali waan laanahay macal xukuumadda ka suganahay imika umana codaynana haday gobolnimadii xukuumadda imika joogta bas loo yeeray siin weydo gobolnimada
ما فهمتي وما عضينا عرنا وكل halkan uu ka yidhi waa inuu taasi noo dhameeyaa oo imikaanu uga fadhinaana waan uga fadhinaaba sidaasaanu leenahay daaqadan ka soo gali jiraa tidhi albaabkaad ka soo gashay taasaan doonanaa inaad dhabayso ood gobolnimadiina siiso marka waxaan leehayeen muxuu hayeen haa markuu meesha tagaday haa waanu codaynanaana wadani waanu noqonanaa ma fahantay waxaan leenahay inuu gobolnimadiina siiyo gabiley cid uun baa loo aaneynay laakiin cidii looma aaneynaya degid gabiley cid walba way noqonaysaa gabiley cid walba way noqonaysaa marka waxaan leenahay ciroy hambalyo saaha lagugu daydo bismillaahir rahmaanir rahiim shirkan wadani ee maanta sida sharafta lagu soo dhamaaday waan hambalyeynaya waana haykal dawladnimo sababta maxay ahayd isku wareejintu cabdiraxmaan waxa leeyahay mar hadda adiga oo madaxweynaha ku guuleysan aad wareejisay waa ruux iyo gobonimo iyo sharaf waxa weeyaan xusbiyada kalena ku daydaan baa taa looga baahan yahay gaar ahaan waliba xusbigan u cid baan sheegayaa mudane Faysal Cali Waraabe isagana waxa leeyahay xusbigan aad ka dhigtay xusbi aad leedahay waxa weey xusbiga xusbi la wada leeyahay si alaajigeedu inaad ku wareejisaa maxay ahayd adiguna sida sharafta loo kala waan iskaga wareejisaa insha Allah waxa weeyaan ninka xirtiye la doortayna waan hambalyeynaya ariga waan soo dhaweynaa waxaan leeyahay aad iyo aad aan soo dhaweynaa tan reer gabiley shacabka reer gabiley tanahay waayo ku dayda baan leenahay waayo dadeesho fiican buu sameeyay isagoo helin buu wareejiyay xitaa maanta raggii gudoomiyaha xusbiga kulmiye maanta musabixi soo ma hayo wuxuu hayaa madaxweynuhu haya maanta ma wali hadaa ma wareejin inuu wareejiyo gudoomiyaha xusbiga wali laga ma yaabo laakiin musabixi iyo kuwa la qeyrka waxaan leeyahay waar ku dayda ninkaas dhiishkiisu u fayowyay dhiish fayow baa loo baahayay dadkan inay soo doortay iyo dadkan iyo ciidan waxay u baahan tahay dad wax u qabta ilaahayna weydiin doonaa dalka iyo dadka mas'uuliyad qaali qaadina ومن يعمل مثقال ذرة ومن يعمل مثقال ذرة شريرة ومن يعمل مثقال ذرة خيرة ومن يعمل مثقال ذرة شرة إلهي وحليه هذا إن يرى خير سميسانا وأن نجاب عليه يرى شرة سميسانا وأن نجاب عليه مركب بالواحد سو أمضاك وقبضات هذا ونرعي شهر دولة بنوجه هنشبي مدحوينه هاي باور بنوجه هنشبي كم بيحكرنا وروح عليه ديش كل شيء يوم مضي حلاقة بتلو بهاي maanta waxaan hambalyeynaa xisbiga wadani oo inta isagoo madaxtinimadii wali qaban ku wareejiyay xirsi waan hambalyeynaa aad iyo aad baan u hambalyeynaa waxa kale oo aan leenahay inay ku daydaan qolooyinka kalena inay ku daydaan xukuumadda iyo xisbiyada kaleba inay ku daydaan iyaguna ay ku wareejiyaan kuwooda kale ayaan hambalyeynaa dhammaan ummadda Soomaaliland aad iyo aad baan u salaamayaa ladoodii kamid ahaa si kastaba ha ahaatee musharaxa xisbiga wadani cabdiraxmaan cabdilaahi ciro ayaa ah gudoomiyihii ugu horeeyay isagoo sharaxan wareejiye xisbigiisa isla markaasina ku wareejiya mas'uul kale oo u noqon doona hoggaanka xisbigaasi waa Cabdisalaan Maxamed Bade Bulsha TV gabiley.